daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah amba waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud mudane ku soo dhawaada Universal TV iskeeda xarunta maamulka Hirshabelle ee magaalada mahadsantahay waa tahay anagana sida aad waraysiga nooga aqbashay waan kaaga mahadcelinaynaa in dhismaha maamulka Hirshabelle mudane madaxweyne waxay kaga dhigan tahay in dowladda in guud ahaan dhismahaasi la soo gabagabeeyay oo madaxweynihii maanta la calaamay bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah maanta maalintan haddaatay khudbadeedu ugu aqri maalin weyn oo taariikhi waaye maalintii la dhisay maamulkii shanaad oo ka mid ah federaalka Soomaaliya labada gobol ee Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan oo runtii muddo dheerna laga shaqaynayay juhdi badan iyo dadaal badan loo soo galay si nidaam oo tartiib ah oo nabad ah ku dhamaaday ku soo gabagaboobay fayskiisii hore maanta labadaas gobol maamul isu tagay leeyihiin baarlamaan leh guddoonkiisii leh doortay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen doortay dabcan xukuumaddii ayaa dhismaheeda u dhiman yihiin waana rajaynaa inay mar dhow ayadana ay dhammaan doonto marka nidaam dowlad goboleed oo si rasmi ah oo macno leh oo runtii si dimuqraadi ah oo dadku intiisa badan raalli ka yihiin ku dhisma waaye maamulkan Soomaaliyana waxay uga dhigan tahay maalin weyn oo runtii dalka la dhihi karo federalismkii meel gabagaba uu maraa laakiin waxbaa weli ka dhiman waa tahay mudan madaxweyne sidee maamulkani inuu ka dhismay oo madaxweynihiisii iyo hoggaankiisii maanta la calaamay dhismaha dalka iyo horkaca ugu qayb qaadanaya dabcan hoggaanka maamulkani madasha hogaamiyaasha qaranka uu ka mid noqonaa talada Soomaaliya wax ka jaangoynaa dadka deegaankan deganna dabcan waxaa fiican maanta in rikoorka la geliyo magaaladan caasimadda u ah maamulkan ee Jowhar sida ay u taalo facility-ga iyo qalabka ay leedahay kaabayaasha ay leedahay ee dhinaca dawladnimada iyo maamulka waana arki doontaa sanad ama 2 sano kadib magaaladan oo aad iyo aad isu bedeshay dawladnimadu marka waxay wadaa horumarkeeda waxay wadataa dadaalkeeda dadka labadan gobol degan waxay yeesheen cod ay Soomaalida inteeda kalena wax kula wadaagaan caalamkana wax kula wadaagaan marka codkaas sharciyeysan oo dadkii wakiil ka ah oo dadka labadan gobol degan ay doorteen waaye waxa aad iyo aad muhiimka u ah wixii horumarin iyo dadaal ay dawladda dhexe ku leeyihiin way helayaan wixii maxaan ku iraahdaa deeqa ah ama horumarin ah beesha caalamka ay ku leeyihiin way helayaan marka waa dadkii oo tala yeeshay cod yeeshay irid laga soo galo irid go'aan u gaari karta wax u qaadi karta yeelshay waaye marka dhinac walba loo eegaayo waa horumar u soo kordhay dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan iyo dawladda dhisida Soomaaliya iyo dadka ku nool labadan gobol gaar ahaan maadaama iminka maamulkii la dhisay horena dhowr maamul oo hore loo dhisay maxaa kaaga qorshaysan iyo heshiisiinta goobaha maamuladan laga dhisay dabcan waatan dhahay fayskii koobaad ama qaybtii koobaad dhaqan gashay oo ahayday dhismihii maamulada xoojinta maamuladaas marka fayska dambe hadda la galay doono hadii la yiraahdo waa xoojinta yani maamulada oo dhinaca dawlad wanaaga laga xoojiyo dhinaca amniga laga xoojiyo dhinaca muxuu ahaay adeega bulshada oo maamulka bixinayo laga xoojiyo dhinaca maxaan ku iraahdaa kaabayaasha dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhinac walba laga xoojiyo waaye marka waxa u dhiman in hay'adaha dawlad goboleedyada guud ahaantoodba in awoodooda oo hay'adeed kor loo qaado la dhiso ayaa lagu mashquuli doonaa mustaqbalkan dhow hadii la yiraahdo waa gartay mudan madaxweyne khudbadaada maanta waxaa ka mid ahayd in maamulada harsan oo kale ay ka mid yihiin maamulka gobolka banaadir iyo gobolada waqooyi iyo Soomaaliya in hadda dabcan gobolka banaadir waa caasimadda jamhuuriyadda waana magaalo madaxdii yani qaranka dastuurka ayaana tilmaamay inuu maqaam gaar ah yeelanayo maqaamka gaarka ah wuxuu ka hadlayaa qaab dhismeedka maamulka uu yeelanayo gobolkaas maqaamka gaarka wuxuu ka hadlayaa maadaama caasimaddii waa la yiri sidii dadka Soomaaliyeed ay u wada lahaan lahaayeen caasimadda Soomaaliya waxay hadda waxay tahay meesha kaliya ee dadka Soomaaliyeed oo dhan ay wada leeyihiin oo ka dhaxaysa marka maadaama meeshaas ay sidaas tahay muuqaal qaran inay yeelato oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay kalsoonidaas caasimadoodii inay tahay oo ay leeyihiin oo ay ka wada tirsan yihiin in ay gaaraan waa dadka Soomaaliyeed
maqaamku marka waxaas uu ka hadlayaa talada dadka oo gobolka banaadir degan oo magaalada muqdisho oo ah magaalada dalka jamhuuriyadda ugu weyn dowlad goboleedyo badan oo maanta jira ka dad badan ka dakhli badan ka awood badan haddana caasimaddii jamhuuriyadda inay tahay doorka marka dadkaas malaayiinta ah ee gobolka banaadir ku nool talada dalka meesha ay ka gelayaan yaa waxay u baahan tahay in la xaqiijiyo waajibaadka dalka inta ay ka qaadanayaan yaa waxay u baahan tahay in la xaqiijiyo marka waxyaabo badan ayuu maqaamku qeexi doonaa haddii alla yidhaha maqaamkaasi waa sharci u gaara muqdisho oo aan dowlad goboleedyadu aanay lahayn aanay la wadaagin meesha dowlad goboleedyadu dastuuri wax inay keliyin laga yaabo maqaam dastuuri ah oo dastuurka federaalka ku cad ayay yeelan doontaa muxuu ahaay magaalada muqdisho waa gartay gobolada waqooyi iyo Soomaaliya oo kale ama Somaliland iyagu hore waxay u sheegeen in Soomaaliya inteeda kale ay ku go'aan wada hadallana way jireen maanta waa soo hadal qaaday iyo in maamul loo dhisay maxaa kaga qorshaysan dowladdaada qaabkeesa loogu dhisayaa annaga horta gobolada waqooyiga Soomaaliya dhul hadda deganaanshiyo fiican ay ka jirto waa degan yihiin colaado sokeeye mar hore zaman hore fogay colaado sokeeye ka dhamaadeen dowlad dhisid nidaam dowlad dhisideed ay galeen doorashooyin ay galeen waa is doorteen waxay soo doorteen dadkooda matala oo maanta talada dalka maamulka muxuu ahay gacanta ku haya oo lagala xaajoonaya haddaba marka hadda iyagu muhiimadda noogu daran maamul u dhisid oo goboladaas waqooyiga maamulo loo dhisayaa ma aha waxaa maanta muhiimadda ajandaha siyaasadeed ee dowladdu u yahay waxay yahay goboladaasi iyo Soomaaliya inteeda kale siday isu qaadan lahaayeen oo dib ay isugu soo noqon lahaayeen waaye waxa laga hadlayo oo wada hadalladuna hadda ay ka socdaan laakiin gobolada gobolo degan oo dib u dhis ka bilowday horumar badan gaaray doorashooyin ka dhaceen dadka si dimuqraadi ah loo soo doortay haddana doorashooyin kale u madlan yihiin oo u socdaan waaye dhinacaas marka horumar aad iyo aad u weyn oo dadka Soomaalida ah ay ku faani karaan oo ay ku naaloon karaan ayaa ka jira waxaan ka hadlaynaa waxay tahay sidii maxaan ku raadayay Soomaalida dib loo isugu soo celi lahaay dalka hal dal oo hal nidaam iyo hal dawlad leh sida looga dhigi lahaa wada hadalka socdaay dhinacaas ku wajahan yahay waa gartay qaabkee ayaa damacsantii wada hadalka maadaama hore uu socday oo kale haddana u sii wadaan oo wax uga dhaadhacsan sidii Soomaaliya ay u soo biiri lahayd waxna waa mabaadi guud waxna waa farsamo mabda'a guud wuxuu yahay dalka Soomaaliya in la mideeyo oo gobolada waqooyi ay dib uga mid noqdaan dalka Soomaaliya mabda waa kaas farsamo sidee loo midoobayaa iyo muxuu ahay wax loo kala qaadanaya isee wax loo kala raanaya amuurahaas waa farsamo waqti dheer u baahan yihiin haddana waqti dheer aan soo gelinay waqti kalena waa la sii gelinayaa maanta sidaan dhahayba ma degdegsanino berri iyo berri dambe iyo bisha dambe may dhacdo yacni ma rabno inaan muxuu ahay taariikhyo mucayan oo kaas waa inay waxas dhacaan hadda inaan qabanno ama ka hadalno wada hadal oo walaaltinimo ah socdo dowladdu wada hadalkaas u sii xoojin doontaa waxa aan ka hadlaynaa hina waxay tahay sidee loo midoobaa iyo sida loo midoobi karo raalli laysugula wada yahay mar walba waxaan annagu xoojinaynaa waxay tahay spiritka ama rabitaanka dadka dowladnimo raalli laga yahay sidii lagu heli lahay midnimo raalli laga yahay sidii lagu heli lahaa wada hadalkeenu marka dhinacaas ku wajahan yahay maamul dhisid iyo maamul samayn iyo ma ahan waa gartay haddaan dib ugu soo laabano maamulka ka dhismay gobolada hiiraan shabeellaha dhexe ee Hirshabeelle muddo dheer ayaa la waday dhismihiisa caqabado badan ayuu soo maray caawa maamulku uu fadhiyaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen gudoomiye baarlamaan iyo xildhibaano ayuu leeyahay dowladdana maanta madaxweynihii iyo caleemo saaran maamulka intii dhismihiisa ay socdeen maxaa kuugu yaabadnaa oo kala kulantay wallaahi dee dadkeennu duruufo aad iyo aad u adagay soo mareen qaabab dagaal sokeeye maamullo kala duwan oo dhib badan wax badan ay soo mareen kalsooni darro badanaa ka muuqatay kalsoonida dadka ku kalsoonaan lahaayeen ama qancinta dadka lagu qanci lahaa sidii ay wax ay wada leeyihiin ay u samaysan lahaayeen yay ahayd midda ugu dhibka badanna oo waqtiga dheerna naga qaadatay dowladda federaalka iyo guddiyadii iyo urur goboleedka igad iyo waqtiga u dheer wuxuu uga baxay sidee dadka loogu qancinaa wax ay wada leeyihiin in ay dhistaan ay samaystaan waa loo sal adeegay waa loo dul qaatay aakhirkiina muxuu ahay dadku way ku qanceen wayna isla qaateen wax ay wada leeyihiin inay samaystaan
maantaana muxuu ahay wixii isla qaateen jawaabteeda ay soo baxday waxa ugu dhibka badana marka aad weydiisay waxaan ka dhigi karaa waxay ahayd sidii loo heli lahaa kalsooni wax ay wada leeyihiin dadku inay samaystaan taasna annaguna waqtiga aan gelinay oo dheeraadayba waxa keenay intaasay ahayday in maalin walba qof la soo qanciyo maalin walba koox la soo qanciyo maalin walba loo safro anigu aan u safro oo ra'iisul wasaaruhu u safro oo gudoomiyaha baarlamaanka u safro oo muxuu ahay golaha wasiirada qaybooda kala duwan u safraan oo meel walba tagaan oo cid walba gurigeeda loogu tago oo aniga madaxweynaha jamhuuriyadda ah waxaan gurigooda ugu tagay dad badan salaadiinaan guryahooda ugu tagay si loogu qanciyo inay maamul ka mid noqdaan maantana ayagoo faraxsan oo maamulkii dhistay ku faraxsan inay dhisteen ay meesha fadhiyeen marka hawl runtii wadajir loo soo qabtay ahayd